قبل القدومية أحمد موسى نور القدومية عبد الرحمن سحل قدومياشة دقموينكا دليرada qaybaha bulshada maamadii nabadda iyo ka shaqeynaysay xawo Soomaa maasha way maasha maasha Allah iyo dhalinyaradii isdhexgalka dhammaantiin waa idin salaamayaa salaam iyo kasoo qaybgalayaasha kalaba salaamta islaamka salaamu Allahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu salaakadib runtii maantay farxad weyn ayay noo tahay ilaahay baa nala kulmiyey iyada waan ka jeclayn inaad sidaan oo kala xaadirno laakiin aniga kollay qofaan ahay in munaasabadii 1 Juulaay 1 Luulyo ee Soomaaliya gobolladii koonfureed iyo waqooyi ay midoobeen isla markaasna noqotay maalinta midnimada ku astaysan in gaalkacyo oo dadka Soomaaliyeed wax badan ka maqli jireen oo ayadoo midaysanna lagu soo aadiyo munaasabadeedii wax sahlan maaha waa wax ilaahay looga xamdiyo ilaahay baan uga xamdinaynaa salaam alxamdulilah waxaa la yidhi la in shakartum laazidannakum haddii lagu xamdiyo ilaahay nicmadu ku siiyey wuu kuu sii ziyaadinaya wuu kuu sii badinaya marka wixii fiican oo aan haysanna waa ku xamdinaynaa intaas ka soke maantay hambalyo weyn waa maalin dadka Soomaaliyeed bulsho ahaan way u jireen oo bulshada Soomaaliya taariikhdeedu kumanaan sano waa ee geeska Afrika ama bariga Afrika ku nooleed ka bulsho ahaan laakiin 60kii 26kii iyo 1 Juulaay waxay ku astaysan yihiin maalinkii isticmaalkii iyo gumaystihii haystay Soomaaliya ee kala qaybiyey ee la yiraahdo isbuuca xorriyadda ma jiro dal la yiraahdo dal yani isbuuc xorriyadda haysta ma jiro wuxuu isbuuc xorriyadda ku noqday dalalka hal maalin bay xorooba isbuuc xorriyadda waxaan ku noqonnaa ama bil xorriyadda aan noqon lahayn haddii qaybaha kale laftoodu ay xoroobi lahaayeen waxaan ku noqonnay kala qaybtii iyo qaybintii isticmaalku dalka Soomaaliya dadka Soomaaliyeed uu kala qaybiyay 5 qaybood taasaa waxay noqotay 26kii in la yiraahdo waqooyi baa xorowday 27kii Djibouti baa xorowday 1diina koonfurta xorowday haddana midnimaday ku sii darsan weli waxaa noo sii dhimanaan lahaa kuwa kalaa noo sii dhimanaan lahaa waayo dhibkii gumaystuhu uu dalka Soomaaliyeed u geysan ayadoo laga soo kabsan baa dowladnimadii Soomaaliya timid marka waxaan xusaynaa waxay tahay bulsho ahaan waa u jirnee waxaan xusaynaa dowladnimadii Soomaaliya ee lagu wareejiyey dadka Soomaaliyeed inay u madax bannaanaadaan xukunkooda iyo dowladnimadooda ayaan xusaynaa laakiin bulsho ahaan waa ka sarreynaa 60kii waana ka weynaa waa ka facweyn marka runtii halgan dheer maanta oo kale dadka la raba in la xasuusto waxay tahay dadkii dhalinyarada ahaa ee SYL iyo bulshadii Soomaaliyeed oo kale 13 bay ahaayeen kaligood waxa ma qabteen bulshadii Soomaaliyeed ee dumar iyo dadba ee oodkaca ayagoo baabuur haysan diyaarada haysan jigjiga iyo Gaarisa iyo Muqdisho iyo dhulkan hadda aan joogno Mudug waqooyi ilaa Djibouti dadkii lugta ayagoo halgamaya u lugayn jiray oo u raran jiray baabuurta u raaci jiray hadafkaas weyn lahaa dadkaasaan leenahay dadkaan xusayna kuwaas waa Allah wada naxariisto in yar baa ka nool badankoodii way tageen dadkaas dhaxal ayay nooga tageen ay ahayd inaan ilaalsano laakiin runtii biyadays badan yeeshay oo dowladnimadii mar faraha ka baxday oo 10 sano dowladnimada Soomaaliya ay soo martay oo maaragtay kadibna dowladda tabar daran oo ilaa iyo hadda aan ku jirno oo la yiraahdo dawlad faashila Soomaaliya failing state lagu magac daray yani dhibaato xoogan oo 30 sano ayaan farahay ayaan dowlad haysanay 30 sano na koorada ku jirto
ديسي يا الخاتم waxaan rabaa hadalku waa badan yahay soo celinteeda dhalinyarada mudug iyo dadka reer mudug oo aasaas u ahaa waagii horena aasaas u ahaa xorriyaddii iyo gobonnimadii soomaaliya inay soo noqoto waxaan rabnaa mar labaad halkan inay ka bilaabato in dowlad macno leh oo soomaaliyeed ay nooga dhalato caasim soomaaliya systemka federaalka ee aan qaadanana waa system runtii dee mahurtaaha lama hori karin maanta ma jirteen yacni horumarka ka jira aan gaalkacyo ku aragnay ama soomaaliya qaybaheeda kale ka jira ma aanan aragneen haddii systemkaan aan la qaateen muqdisho oo caasimaddii oo muraayadii dalka oo dowladda soomaaliya lagu tijaabiyey inay kufmiso jidadkeedii waa loo kala gudbi lahay laakiin gaalkacyo ma aanan arag jid xiran xor baa loo socdaa nabad iyo baraare xoogan bay haystaan marka waxaan leenahay hadda halkan waa in laga qaadaa systemka nabadgelyada lagu sugay iyo kala dambaynta in halkan inta laga qaado kor loo wada wado federaalka faa'iidadiisayna ka mid tahay waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado reer gaalkacyo si gaara waxaa jiray halgankii markaan ku cabirayno likulli maqaamin lahu maqaal baaliya cabdullaahi ciise allah u naxariistee markii uu safrayey waa tii la yidhi waa la durayaa in la duro waaye intuusa safrin ka hor muuri maxamed yuusuf muuri allah u naxariisto manool yahay suwa allah u naxariisto dhawaan buu dhintay ayaa yidhi anigaa lay durayaa way isku ekaayeen labaduba waxay ahayd dad deegaanka ka soo jeeda saasaa dhiigga la isugu jiri jiray taariikhda xun ee dagaalada iyo waxa xun ay yimid in naloo xuso ma rabno taariikhdii wanaagsaneyd ee dalkaani lahaan jireen dadkaani lahaan jiray ee ah inay nafta isku huraan iska daa inay naf iska qaadaane inay nafta isku huraan taariikhday ahayd baan rabnaa meeshaan dhalinyaradii waa joogaan isdhexgalka taariikhdaas noo xusa dadkana xasuusiya wixii dambe oo ahaa maaragtay wiilka dhalinyarada ah ee isdhexgalka ururka dhalinyarada madaxda ka ahaa ee puntland uu yidhi gaalkacyo waa mid dadkeeduna waa walaal halkudhigaas naga dhabeeya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta waa maalin weyn ilaahay idankiis waxaan xaadiri doonaa waan ku soo laalaaban doonaa gaalkacyo wixii naloo dhiibana waan qaadaynaa wixii dhimanna inaan dhammaystirnaan diyaar u nahay ilaahay idankiis waxaan idinka rabnaa idinkana gaalkacyo ayaan dhaweyto xoogaa yar oo magac xumaa ayaa soo gaartay oo aan u nimid awgeede arrintaas oo kale ilaahay baan idinku dhaarshay naga ilaaliso waa ceebe dadka soomaaliyeed magaalahay u siman yihiin ha noqoto wixii dhib wadana ha la yska qabto laakiin wixii dhacay runtii oo loo yimid oo laga xaalay oo aan rajaynayno inaad war farxad leh oo xala aad maqashaan galabtay iyo wixii ka bilowda waxaasi hadda kadib yaysan ugu dhicin wixii lagu dhiqi lahaana reer gaalkacyadoo wada jiraa laga rabaa arrintaas magaaladan waxaan rabnaa magaalada saddexaad ee soomaaliya waa jamhuuriyadda soomaaliya ayga raali noqdaan saaxiibaday reer koonfur galbeed waa marmarka qaarkood waa inaan faarnaa qasab way muqdisho iyo waxaa naga weyn hargeysa magaaladan tan saddexaad population ahaan dad ahaan iyo baaxad ahaanba waa magaalada saddexaad waxaan rabnaa magaalo soomaaliyeed inay noqoto waana maasan